Xamaas waa ururka ugu weyn ee u dagaalama danaha iyo xoreynta Falastiiniyiinta, waana koox abaabulan oo xilli walba diyaar u ah ka jawaabidda duulaanka gardarrada ah ee Israa'iil. Ururkan waxaa la aasaasay 1987, waxaana magaciisa loo soo gaabiyey Xarakatul Muqaawamah al-Islaamiya. Waana urur Islaami ah oo ay ka go'an tahay burburinta Israa'iil. Sida taariikhdu sheegayso, Xamaas markii hore waxaa laga lahaa laba ujeedo oo kala ah iska caabin hubeysan oo uu fuliyo garabkiisa militari ee Al-Aqsam iyo mid ka horumarinta bulshada. Laga soo bilaabo aasaaskii, Xamaas waxay diideen gorgortan ka qaadaya dhul kasta. Kooxdu waxay cambaareysay heshiiskii nabadeed ee 1993 ee u dhexeeyay Israa'iil iyo Palestine Liberation Organization oo ay weheliyeen kooxda Falastiiniyiinta ee Islamic Jihad. Kadibna waxay xoojiyeen ololahooda xoreynta. Maamulka xoreynta Falastiin iyo Israa'iil waxay kaga jawaabeen tallaabooyin adag, inkastoo gudoomiyihii maamulka xoreynta Falastiin Yaasir Carafaad oo doonayay in Xamaas lagu daro geedi socodka siyaasadda uu jagooyin muhiima kooxdan ka siiyey maamulka Falastiiniyiinta. Burburkii wadahadaladii nabadeed ee u dhexeeyay Israa'iil iyo Falastiin bishii Sebteembar sanadii 2000 ayaa u horeysay sare u kaca rabshadaha oo ilaa maanta ah kuwa sii kordhaya. Hase ahaatee, sida la xasuusan yahay, kadib markii ay Israa'iil ka soo baxday Gaza sanadkii 2005, Xamaas ayaa qayb ka noqotay hanaanka siyaasadda Falastiiniyiinta, waxaana uu ururku ku guuleystay doorashadii baarlamaanka ee 2006. Sanad kadibna waxa uu la wareegay gacan ku haynta Gaza kadib markii la eriyay dhaqdhaqaaqa Fatah. Tan iyo markaas, ururka Xamaas ayaa 3 dagaal la galay Israa'iil, waxaana xusid mudan in xukuumadda Tel Aviv iyo dowladda Masar ay go'doomiyeen marinka Gaza si ay ururka Xamaas uga cadaadiyaan inuu joojiyo weerarada. Sidoo kale, xilligaasi ururka Xamaas, gaar ahaan garabkiisa militari, waxa uu noqday mid Israa'iil, Mareykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub iyo dalal kale ay u aqoonsadaan urur argagixiso. Balse in muddo ahba Xamaas waxay gucul orod ugu jirtay burburinta maamulka Israa'iil iyo abuurista dowlad Islaami ah oo ka hana qaada Falastiin, taa oo gasha taariikhda. Waxaana dhaqdhaqaaqan uu taageero ballaaran ka helayay dowladda Iiraan. Xukunka Israa'iil ee Xamaas waa dhimasho, laakiin dhinaca kale, dagaalyahanada Xamaas waa kuwa doonaya inay dabar jaraan Israa'iil, waxaana mid kasta uu taagan yahay mabdi'iisa. Awoodda garabka militari ee Xamaas iyo howlgalladii ay fuliyeen haddii aynu eegno, garabka militari ee Xamaas ayaa ah mid leh awood baahsan, islamarkaana haysta hub casri ah. Inkastoo tiradiisa rasmiga ah aan la shaacin, haddana waa kuwo weeraro gaadma ah iyo dagaal toos ahba kala hortaga Israa'iil. Balse hubkaasi aadka u awoodda badan una saameynta badan ay Falastiiniyiintu haystaan waa madaafiicda goobaha dagaalka loo adeegsado oo noocyo kala duwan leh, waxaana kuwaasi laga tuuri karaa dhulka iyagoo lagu bartilmaameedsanayo xarumaha ciidamada ee isla dhulka ku yaala. Qaar ka mid a gantaaladaasi iyo kuwo kale oo lagu riday qalabka lidka taangiyada oo la adeegsaday maalmihii lasoo dhaafay ayaa la aaminsan yahay in Falastiiniyiinta loo soo gudbiyey iyadoo lasoo marinayo dhuumo dhulka hoostiisa ah oo ku yaala gacanka Siinaay ee dalka Masar. Ha yeeshee, Xamaas iyo Islamic Jihad ayaa gudaha Gaza ku samaysta hubka iyagoo ku farsameeya warshado la qariyay oo ku yaala meelo ka mid a marinka Gaza. Khubaro reer Israa'iil ah iyo kuwa caalami ahba waxay rumaysan yihiin in saynisyahano u dhashay Iiraan ay gacan weyn ka geysanayaan dhismaha warshadahaasi lagu sameeyo hubka. Waxaase adag in la qiyaaso tirada gantaalada u kaydsan ururka Xamaas. Gantaalada ay Falastiiniyiintu tuuraan ilaa ay hadda kama muuqato inay yihiin kuwo cusub marka la eego sida ay u naqshadaysan yihiin, balse qiimeynta guud ee lagu sameeyey waxay qeexaysaa inay kordhiyeen awoodooda iyo qaraxyada ay sababi karaan gantaaladaasi. Inkastoo magacyada iyo naqshadaha gantaalada qaar ay jahwareer keeni karaan, Xamaas waxay soo hindistay gantaalo badan oo ah kuwa ridada gaaban, sida midka loo yaqaano Qasam oo gaari kara 10 kilomitir oo u dhiganta 6 mayl, iyo mid la yiraahdo Qudus 101 oo tiiradiisu ay gaarayso ilaa 16 kilomitir, kuwaasoo lagu sii xoojiyay qalabka Grad oo gaarsiinaya ilaa 55 kilomitir, iyo Saji oo isna gaarsiinaya ilaa 55 kilomitir iyo wixii ka badan. Qalabkan waxaa la aaminsan yahay inay iyagu soo hindiseen islamarkaana u adeegsadaan inay ku fogeeyaan gantaalada ridada gaaban leh oo lagu sii kordhinayo dab dheeri ah. Hase ahaatee, Xamaas waxay sidoo kale adeegsataa gantaalo nooca ridada dheer ah sida M-75 oo gaari kara ilaa 75 kilomitir, gantaalka Fajar oo gaaraya ilaa 100 kilomitir, iyo gantaalka R-160 oo gaaraya ilaa 120 kilomitir, iyo midka la yiraahdo M-320 oo isna gaara masaafo dhan 200 oo kilomitir. Tani ayaa muujin karta in Xamaas ay haysato hub lagu garaaci karo magaalooyinka Qudus iyo Tel Aviv labadaba, iyo sidoo kale inay halis gelin karaan guud ahaan marinka xeebta ah oo ay degan yihiin tirada ugu badan ee shacabka Israa'iil, halkaas oo ay ku yaalaan kaabayaasha ugu muhiimsan ee maamulka Israa'iil. Sida taariikhdu ku xusan, Xamaas ayaa soo caanbaxday kadib intifaadadii koowaad, xilligaa uu ururku diidanaa heshiisyo nabadeed
oo horaantii 1990-meeyadii ay kala saxiixdeen Israa'iil iyo ururka xoreynta Palestine Liberation Organization ee Yasser Arafat uu hogaaminayay. Bilihii February iyo March 1996 ururka ayaa fuliyay dhowr qaraxyo ismiidaamin ah oo ay la beegsadeen basas ayna ku dhinteen ku dhawaad 60 Israa'iiliyiin ah. Weerarada ayaa argoosi u ahaa qaarijintii December 1995 ee Yahya Ayash oo bambooyinka u sameyn jiray Xamaas. Qaraxyadaas ayaa loo aaneeyaa inay Israa'iil ka weecato hanaanka nabadda oo isla sanadkaas xilka la wareego Benjamin Netanyahu oo aad u diidanaa heshiiskii Oslo. Falastiiniyiin badan ayaa taageero u muujiyay weerarada qaraxyada loo adeegsaday ee Xamaas, waxaana ay u arkayeen kuwa loogu argudayo kana dhan ah deegaamiinta ee Israa'iil ka waday daanta galbeed. Bilihii March iyo April 2004 hogaamiyihii ruuxiga ah ee Xamaas, Sheikh Ahmed Yaasiin iyo ninkii xukunka kala wareegay ee Cabdulcasiis Al-Rantisi ayaa waxaa lagu dilay duqeyn Israa'iil ka fulisay Gaza. Isla November sanadkaasi waxaa geeriyooday Yasser Arafat oo madax u ahaa maamulka Falastiiniyiinta, waxaana xukunka la wareegay Mahmoud Abbas oo rumaysnaa in gantaalada Xamaas aysan waxba soo kordhinayn. Markii uu ururka Xamaas ku guuleystay doorashadii baarlamaanka 2006 waxaa halkaasi ka bilowday loolan awoodeed oo dhex maray ururkaasi iyo ururka Fatah. Ururka Xamaas ayaa diiday dhammaan dadaaladii lagu doonayay inuu saxiixo heshiisyadii hore u dhex maray Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, kuwa oo ay ka mid yihiin inuu aqoonsado sharcinimada Israa'iil iyo inuu ka waantoobo colaadda. Guushii doorashada kadib, Israa'iil iyo saaxiibadeeda galbeedka ayaa xukuumaddii Xamaas la beegsaday cunaqabatayn dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed. Kadib markii Fatah laga saaray Gaza sanadii 2007, Israa'iil ayaa waxay xoojisay go'doominta dhulkaas, waxaana sii socday gantaalada Falastiiniyiinta iyo duqeymaha Israa'iil. Israa'iil ayaa mar walba mas'uuliyadda dhammaan weerarada uga yimaada Gaza dusha ka saarta Xamaas, waxaana halkaa ku dhex maray 3 duulaan oo waaweyn. Bishii December 2008 militariga Israa'iil ayaa bilaabay howlgal ay ugu magac dareen Operation Cast Lead si uu u joojiyo gantaalada looga soo gano Gaza. In ka badan 1300 Falastiiniyiin ah iyo 13 Israa'iiliyiin ayaa ku dhintay dagaal socday 22 maalmood. Israa'iil ayaa mar kale bishii November 2012 waxay duulaan la magac baxay Operation Pillar of Defense waxay ku qaaday Gaza. Dagaalka ayaa ku bilowday duqeyn ay Israa'iil ku dishay Ahmed Jabari oo ahaa abaanduulaha Gaza. Ku dhawaad 170 Falastiiniyiin ah oo u badan rayid iyo 6 Israa'iiliyiin ah ayaa ku nafwaayay colaadda oo socotay 8 maalmood. Xamaas ayaa awood ahaan iscaabisay labada dagaal, balse waxaa sii xoogaystay taageerada ay u hayaan Falastiiniyiinta oo u arkayay in ururka uu dagaal la galay Israa'iil isla markaana badbaaday. Bishii July 2014 labada dhinac ayaa dagaal kale oo xoogan isaga hor yimid. Dagaalka oo socday 50 maalmood waxaa ku dhintay ugu yaraan 2251 Falastiiniyiin ah oo 1462 ay rayid yihiin. Israa'iilna waxaa laga dilay 67 askari iyo 6 qof oo rayid ah. Tan iyo 2014 waxaa marar badan sare u kacay xiisadda labada dhinac, balse waxaa guuleystay dhowr xabad joojin oo ay dhexdhexaadintoodu lahaayeen Masar, Qatar iyo Qaramada Midoobay. Weerarkii Xamaas ee koonfurta dhulka ee Yuhuuddu haysato oo ay hogaamiyaasha kooxda ugu magac dareen howlgalka Al-Aqsa waxa uu ahaa mid aan caadi ahayn. Howlgalku waxa uu bilowday subaxnimadii hore ee 7 Oktoobar oo ahayd Sabtida Yuhuudda iyo maalin fasax u ah. Xamaas waxay dhowr kun oo gantaal ku garaaceen koonfurta iyo bartamaha dhulka la haysto, waxayna garaaceen magaalooyin ku yaala waqooyiga Tel Aviv. Xoogagga Xamaas ayaa sidoo kale jebiyay xadka Gaza ee sida weyn loo ilaaliyo, waxayna gudaha u galeen magaalooyin iyo tuulooyin badan oo ku yaala koonfurta Israa'iil, halkaas oo ay ku dileen 1400 oo qof, tiro kalena ay ku dhaawaceen, kuwana ay ku qafaasheen. Weerarkii Oktoobar 7 waa kii ugu dhimashada badnaa ee soo maray Israa'iil taariikhda 75 sano oo ay jirsatay, waxaana uu dadkeeda u geystay dhaawac maskaxeed oo qoto dheer, iyadoo falanqeeyayaasha qaarkood ay barbar dhigeen Pearl Harbor iyo September 11 weerar lagu qaaday Mareykanka. Xilligan inkastoo ay weli go'doonsan tahay Gaza, ururka Xamaas ayaa sii xajistay maamulka marinkaasi isagoo tayay hubkiisa gantaalada ah, waxaana quwadooda ay muddooyinkii ugu dambeeyay noqotay mid fajac ba'an ku abuurtay Israa'iil, waana kuwa soo dadejiyay in askar badan oo Israa'iiliyiin ah ay nafta iyagu isdhaafiyaan sababo la xiriira rucbiga iyo cabsida weerarada xeeladaysan ee ka imaanaya Xamaas. Si kastaba waxaan la xaqiiri karin inay ka sii darayso xaaladda bini'aadanimo ay la daalaa dhacayaan shacabka 2 milyan ah ee ku nool Gaza,
waana kuwo wajahaya walaac dhanka biyaha, daawada iyo korontada ah, taas oo ku timid duqeymaha Israa'iil iyo gaabiska dowladaha Carabta ee ku hareeraysan Falastiin kuwa oo taageero muuqata laga waayay. Talaabadan ayaa noqotay mid niyad jab ballaaran ku abuurtay guud ahaan caalamul Islaam oo iminka ku soo aruuray inuu dhaleeceeyo duulaanka Israa'iil iyo in shacabka Falastiin ay u rajeeyaan maalmo qurxan oo neecaw xornimo huwan.